السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada walaal youtube-kayga Jib Cumreen kolkay kugu horeysa haday tahay subscribe-ta saar is abonee share-ta si asxaabta ma aragtay sida ula wadaagaan gaarsiya asxaabtaas. maanta waxaan ka faalonaynaa xafiiskayga ku yaala Turkiga magaalada Istanbul. waxaan qabano iyaan ka faalonaynaa kol hore waan soo sheegnay markaan taabsanay Facebook waana ka soo dhignay hayd. maanta waan yar falanqeynaa yar waxaan ka hadlaynaa haday dhinaca dhakhtarada noqoto dadka waxaan ka caawinaa visa ka caawinaa hadduu ma aragtay qofka Afrika joogo Djibouti wadanku doona ha joogo xanuunkiisa ma aragtay warqadiisa ayaana noo soo diraa dhakhtarkii aan xiriir kala lahayn baan u geynaa hadduu wax ka qaban karo dhakhtarkaas wuxuu fududeeyaa ma aragtay dhakhtarkaas visa qofka ku soo bixi lahaa warqadii oo dhammaan u habeynaa qofkaan u dirnaa safaaraddu la tagaa visa saaba uga soo qaataa iyo qofkii caawin lahaa. taasi waa halkii dhakhtarka. hadday noqoto ciyaal iskoolka jaamacadaha u imanaya Turkiga magaalada Istanbul ay khaas ahaan waxaan ka caawinaa iskoolkan ka caawinaa jaamacadan ka caawinaa xafiiska uu ka caawiya iskoolkii baa ma aragtay warqadaan uga sameynaa wuxuu noo soo diraa diplomkiisa wixiisa oo dhan noo soo diraa iskoolkan iyaan geynaa oo hadduu iskoolku ma aragtay faaruq yahay aba balas loo heli karo iyaan ku qornaa hadduu u helo ma aragtay kursi u helo oo balas u helo warqado iyaa jiro ma aragtay lagu ogolaado warqadaha ayaan ka sameynaa qofkaan u dirnaa siduu viisaha ugu doonto safaaradda ugu tago Turkiga wadanku doona ha joogay uga soo qaato. taasina waa ciyaal iskoolkii. ta saddexaadna masalan qofku hadduu Turkiga yimaado viisuu kaga dhaco isagoo ma aragtay dalxiis dhakhtar ganacsi wuxuu doonaa ha yimaado hadduu kaga dhaco viisuu magaalada Turkiga waxaan u sameynaa iqaamad kusii meelgaara oo kusii joogo wadanka waqti dheer leh iyaan u sameynaa kaana oo ka caawinaa ilaa inta magaalada ma aragtay uu ka baxayo aba wax kale ka qabsan karayo waa iqaamad aad u dheer taana waa ka caawinaa. ta kalena waxaan ka caawinaa masalan qofka imika hadduu guri u imanayo inuu soo guuro rabo uu guri ka iibsado laamihii ku shaqo lahaa guryahaas iyaan leenaa xidhiidh gurigii ma aragtay waan la soo eegnaa guri fiican baan u eegnaa gurigii ma aragtay qiimaha la qiimuhu rabo yaan u tusnaa meesha alla meeshuu ku yaalana ayaan geynaa guryo fiican oo raqiisaas ka jiran guryahan waan ka caawinaa oo xafiiska ma aragtay xiriir baan leenahay waan kala sheekaysanaa guriguu rabo inta qoluu rabo meeshuu ka rabo wax walba ma aragtay waan kala sheekaysanaa waan ka caawinaa qofkaas oo halkii guryaha aduu waxyaalo badan baa ma aragtay xafiiskayga uu fududeeyaa oo gaar ahaan wadanka Istanbul magaalooyin kalena waa isku wadnaa ma aragtay inaan ka furno xafiisa kale wadana kale inaan ka furnaa isku wadnaa hadduu ilaahay yidhaahdo. shacabka waxaa leenahay marka koowaad iyo marka labaadba ku soo dhawaada xafiiskan cusub ee furnay asxaabtaana ma aragtay haddii maanta kugu horeyso gaarsiin dad waxaa jirto inay muuqaalkan kolkay arkaan ka faa'iidaystaan oo u baahnaaba inay ma aragtay u socdaan Istanbul aba Turkiga ay tagaan qurbaha ha joogaan Afrika ha joogaan Aasiya ha joogaan Amerika ha joogaan wadanka adduunka meeshay doonaan ka joogaan. maantana shalay waxaan qabanay qofkii ugu horreeyay ciyaal iskoolaha aan u dhammaynay warqadiisii aan ku soo dhaweynay magaalada Istanbul gaar ahaan wadanka Turkiga ayaan ku soo dhaweynay annagoo doonay oo yaroo video aan kasoo duubnay uu qofkuna ma aragtay ogolayn isagoo naga codsaday wejigiisa ma aragtay in la arkin isagoo naga codsaday annaguna qadarinayno mowqifkiisa ayaan kasoo duubnay video sidaan u soo dhaweynay sidaan u doonnay iyo xafiiska sida u doonay shaqaaliyaalkaa jooga sida u soo dhaweeyeen sida ma aragtay gacmo furan ugu soo dhaweeyeen wadanka ma aragtay Turkiga ugu soo dhaweeyeen ayaan nii soo bandhigaynaa. daawasho wacan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
waxaan joognaa aerofoorka Istanbul baan joognaa ay jadiidkii la furay waxaan sugaynaa qofkii ugu horeeyay Jimcu Marin soo kaxeynaya waan sugaynaa laakiin ninkii horeeyay Jimcu Marin soo dejiyay waa kan السلام عليكم waxaan ayna ku horeeyay soo dejiyay Jimcu Marin yuruugiisa والله واقع في عبالي سدوي الحمد لله خير بعد يدخلنا إن شاء الله نقري واخذ بيرو جنب واحد بدل ضد سوق قلتي والله وما هذا اللي نادر عمر الحمد لله إنك وانا سالني والنودي ميدي إمك waxaan ku wadnaa xaafada ku degi lahaa iyo meeshu gali lahaa noo suurta gashay alxamdulilah aad iyo aad baan ii salaamayaana Jimcu Marin ha noolaato